Tani waa xaflad ka dhacday tuulada Tuula oo si heer sare loo soo agaasimay taasoo lagu calaamasaarayay gudoomiye xaafadeedka iyo ku-xigeenkiisa oo luqadda qalaadka loogu yaqaano Chief. Xafladda waxaa marti sharaf ka ahaa Mudane Keenan xildhibaanka laga soo doortay degmo baarlamaaneedka Xeeldhaas. Waxaa xafladda lagu daahfuray ciyaar dhaqameedka amaba sida u taqaano balaqleyda. صدوا مشروع كريبو ندقوا كجعلين كريبو كريبو مشروع سو مشروع تحت اسمنا وعر ودده كجرو تبدال سنه ودده كجرو مشروع والوينا وقرب كعينا مشروع والوينا والدو كعينا تبدال سنه كريبو مشروع كريبو dadku waxaan ka codsanaynaa aayarko wadada labadna aan ka socono mushmaa la weynaaya mushmaa aayarko wadada kayna aayarko karibu tuula welcome maanta waxaan isku imaadnay meeshan waxaa waaye calaamasaarka chiefafka Hiran Chief Isaaq iyo Chief Jimcaale hadda programka galina inaan kusii dheeraado marabi odayaashii iyo dhalinyaradii iyo haweenkii ayaan u hadlayaa marka waxaan rabaa si nadaam leh oo sharaf leh inaad u imaadiin oo meesha ugu hadashiin arrintaana maanta inaan mid ku soo koobnaan rabaa arrinta maanta waa calaamasaar mahadcelin waay wax kale meesha kama jiraan marka waxaan rabaa dadkii loo yeeran oo inay meesha ka hadlaan ay ku ekaadaan calaamasaarka
ay ka bixin magacan lahaa ajendaga maanta noo imaan martida sharafta la soo dhawaada tulatula ku soo dhawaada gacanfur ku soo dhawaada waxaan ku codsanaa dadkii aan u yeerin inay laba daqiiqo badan ay qaadin odayaashii ayaan ku bilaabaa waxaana soo dhaweynaa odayga u horeeya mzee maxamed xasan former councilor soo dhawow aye wapi makofi ya mzee sababteeda reer tulotulow waxaa inta ka hor idiin qora waa jiifif waa u malaynaa hadda kuwaana ku lix waayo maanta labaa qoran intuu isaga keena wogtiin intuu isaga keene kar allah siiyo markaa dambigiisa allaha dhaafo waxaan idiin sheega wax weynaas noo qabte waa ujeedin iskuullahan iyo waxa la qabta ujeedin markaan ninkaan waxaa mudan yaha mahad mashruuca waxaan kaa baryayna waa dadaashay khayr allah ku siiyo waxyaalo qaar oo yar oo dhiman israacis inaan meeshaan marka oona sheeganayna oon ilaahay waa naga bixiyey barwaaqad khayr allah adiina mahad kule ilahna mahadaas ku dhiman hadda ooga yaraa noo dhiman meesha waa magaalo weyn waxaan u baahanaa in dhiyoogi doola keeno xafiis gurigiis waa dhiste bismillaahi raxmaani raxiim looga hadli doonaa mashruuca soo dhawow adiga iyo odayaashii qiimaha iyo qaayaha leh oo mar walba oy wax ka jiraan turaantura ka qayb qaata aad iyo aada u mahadsantiin horta beledki waa beledkiini ku soo dhawaada waa beledka ceeldaas ku soo dhawaada gacmo furan mashruuca adiga qabatay 6 jiif ay qabtaa oo 2 qof ay ahaayeen 6 jiif intay ka imaadeen 7 kalena waa ku laaban tahay waxaas kulli waxaa dhalay turaantura meeshii adiga bilaawday faraceeda bal meeshuu sii maraa fiiriya balbal fiir oo la calaama saari rabo iyo kuwii horo sii joogiba ilaahay ha ka dhiga kuwa barakaysan oo khayr qaba waxaana iskugu imaaday oo dadkan martidii iyo reer tulatulaba isu keenay martiqaadka labadeena wiil oo jiifka iyo sabjiifka la siinayo meeshuma waa ku mahadsan tahay odayaasha maanta waxaan u imaadnay inaan calaamad saarno labada wiil oo walaalaheen oo jiififta noogala qoray meeshimiga Soomaalidu waxay tiraahdaa qurmadu waxay qortay hoosteeda dhigtaa waa sheeka ka dhan wiilishii calaamad saaray maanta iyo jiifta kasii horeysaba waxaan uga baryaynaa ilaahay in ay noqdaan kuwa caadil ah oo dadkooda iyo diintooda u samafalo oon ay xanin xumaan laga sheegin aasna habaarin asagana waa wiilkeennii waxyaynaya daliil oon ka aragna aan ka habaarno asagana laga dambeedagal cabsado rirtiga weyn oo garoolka ah miciyaha soofayste qurbac yar oo dabashaar ah oo ku xariirsan haddaan intaas ku leeyahay waa qaniinaan ah qurbac garbaa la kala goynaa ma maqle waa yeelanay ma akhrisan laakiin ilmiina daba joogi gacanta midigta ku qaba meel geey kuwii shaqo ku jiro jagada u kordhi cabdulaahi isaaq adigana embigayna labado aadankaynaan ku xigaas tahay matiid kaasal moomid embig labadaas tahay adigana qof kasta gacmaha isqabsada xag ilaahay aan ugala adeeno waxaa soo heray jiifta kuwii hore sii joogi الله بركة وأنا صقر قتن الله بركة وإحنا قتن إلهي وقرب قال الله بركة ما أنتنا لبن على مسارنا لا بد غير قصة قشة وإلهي سبحانه وتعالى عدالة كذا ذاك يسوع رجس يسوع جدال الله ما قدك كذا أنا هاد بعند ناقلته أمارة يوم أنت لما ما كان يسوي دارم يوم أنت دمنا وسالنا الله كوسودي إن شاء الله تعالى الله كوسودي ما أنت رئيسون يا دان تحضر كل ما ينالك وهم كينا لكن إله ما قبل ما أنتنا وهم بدأ في لينا في غير قرب وسغير أو كوكا وسفر كوكا شيف تصنعها كل إلهي ما بركة وسيس سفر ما على مثال وما بركة ومسلمين تحريري وعدالة كشقي وعدالة مقدم يا الله كذب يوم مشيمو اسكاشلين مربل مالبيا مش على جباري ولوي قريبت هذا اللي يسوي الحمد لله بيه واي مالين مرجع عدسي هذا جيست أسكدي بتن ماشى وحواي إني إلى سكول كلاجي تاوا قصب وحاو عدسي معها شغلنا ولي ويسعتها بيها
aniga waxaan xaqiijinaynaa anigoo mashmuuc iskaashanayna inaan biyaha ilaa meesha u dambaysa liin geyn doono buulo kasta biyo la geyn doono oo meel gooni loo takoor ay jirin markaan arrinta biyaha meeshaasaan ugu baxaa ليو EDCE مدينتا ليو EDCE إنبيه نقول أرتو مدينتا هذا داري أنا وادين حكيم جديد الذي في التلاتولا طبعا هو رئيس السلام ديرا ولا يمكن نكسي قدام طبعا ديرا ولا يمكن نكسي قدام لكم قات هذا الكيدي واحد من هذا الجيش جمع الليل هنا وضل الظهر اللي يسكوه هو ونسقي معالي هنا والأعداء اللي تغل هنا ونقل بكثير درجة الأعداء الجريل العراق وكبتها اللي دارنا قال هذا كوي عم فاوض لي يسوي الغالي ده فكان لا يا كده لما من الله لو كان تلا أن ليه ما بدأته وأنت عندك حدني لله كان عايشه إذا أردت ما أنت جود عيا واكليه ninkii noo soo dhisay dulaa loo wada dhaweyn dhaqaale ka keeni jirin dhawaan bixinaad min kursigana aas ka dhixin dhibaatana ay ku dhixin dhammaan aamiin idhaha dhammaan aamiin idhaha magaalada waa dhaqa oo dhul weyn ay noqotayo dhankeedii caafimaad iyo isguul baa loo dhiso leedagana waa dhimayne laydkeedana waa daraar meeshan ay noqotay oo dhiyaabeeda dhexdeedana waa santa indhihii noo dhinto oo dhaqaalaha keeni jiray ورينكو عطاهم مرة كل عدين عاسكم مرة كرسي على الوجه لو والله نقول درافت كذي تمثل ديستري على كذا إذا يسوى ما يسوى عشان تكذب عليه النقالة لما يبين درافته ولا كبير لما دفتي سعود بالكيس العادية ضمان الراس لما غير رتولا كعمايا ضمان الراس لما قل هذا منك وبيها نحكي لك أنا عفنات كل اسقولها كل لسه دفتي سنة عصولي إن الدولة حتى يستقعين عاص من الله كتاب كان دي ما يقولون سنة والله طايا دوانت عن هذا السنة هذا الكلام أول كان صورنا وليان نيجي نوصل تبقى اليوم الأطفال اللي يقول أنه نقالك كيف يدري مجھے سيدا قرأ لنكا سيب باسر إيه ضمفاني ضبانا مرة تلا إيه نور نحلول ربها وين نور قرية وليه بوجي داخل بضروب وين كنا عجارية عندي غني نحلاص عايز هاي ديستري صلوا نوع قبلها لا يصير عايز هاي نقالها ماشي الله ما كنا عرنا لنا صار عمارة وحالي رعاية النهار نيجي والله يعرفوا الملك اللي قلت لنا من بدأوا عبقوا ونجري المستقبل وصوت لما يحبيزي عيد من إلهي أقول بوري أنا كان دولي الحاجات نقالها نوفي كنا عندنا بمن رمانا وكان نقول الله لك عندنا عين هذا داود الله يكبر خلينا نقول بسم الله كم هتعلن عين واسمع سنتا عدك جاب واسد ووارديس ووارديس الله أنا كواردي كاسوات ما دل هذا كلية الله أنا كلية جرا ما دل ما عندنا هذا أبو سود هذا سي شرف لكم سود هذا سي نوس الوسائل كسي وانا كم كل هذا كينان معشوها كينان أنا شوف قدرنا في عن سيسي وإلا السمر وإلا مقدواي أبا اللجوء كذا شوف قدرنا في عن كذا أنا أستغل وهلا أكبر أجرون وهلا صارت كان لو قدر خير الله. إن هذا كسر دواو سياسة واجر وقت إذا تاجنا وحمل كاميرا ماليه نكسر دواو قلبي وكفر ترسع عدا قالك وقدوك إنه يكون إن عرق الأول فوارد بأوقات الله. مركا ومدة كلا هذا لو خير الله كسي وما سنتهاي أنا صالح عليه وهذا قرن يسا لا بقول لنا غير كأوبريه هاي أدماشي أنا ماشي أكوسو در أكوسو حرين جوجا مركا وانا قاعد عندي وهيك عصوت خير الله كسي قالوا متهد منا هانتجن أبد كان الصوم مريض وضع بورا بدي قال ودني القوت الماء معمول إن أنت بكو ودو حياسته قال ساك الصوف الصوت كجر إن أروح هذا الشمع هذا وعم واقع هذا الشيء إن أكون داخل رمى كي مدير الجوج هذا الكاذب يعود كاذب إن يكون داخل إن لو بقى يلا تاني عادوا قلنا قصر سر ما قصدك أما أسكابه إن أكون داخل أما أكون يهنين أما أكون فرحسن أما عندك سنين أيان آدم أنا جعل ما هنيكو إن قصة الماء هذا وكوين الأرنت عيد الله بركة بركة وحنيد الله يا خير الله يدسي وهذا ما سنتهين لحجيف إلا بهر له سديد ما شاء الله ما شاء الله الله إذا بركة الله كو بركة آذنو عدي واحد من قدمان قدميتك وحال قدتك عدا نقود وانتهي وحي قد وانتهي يعني وحي سو قاري
ninka markii la gudaa labadii wala isku habray ninka curudka in horta loo gudo maanta markii bunka dubi jirnay ninka cid weyn inaad dara maanta la siiyo codka markii la hadlaa ninka cid weyn inaad codka la siiyo sidaasaan soo gaarnay bariyaha .com aan soo baxo ana anta amiira ka baad arada cida waa curudkii il raxmaha lagu fiiriyay aadana oo gacanta cid alxamdulillah rabbil caalamiin gacanta ilaahay inta ka sugayay soo gashay mana cawaadi barkitaan dhageysanay farax iyo fiyoobi ay aad u sheegteen hatta beelaha kala oo dugudiga kiisa kale ama isti ama tarbaja ama wajeer wist ninkooda hawaagu haddaan arka gobol in loo dhaqaana aad u jeclaanay waayo marka ixtiraamkaas aan helna ama aan haysan jirin waa noolaan jirin abaar ama dhici jirin colaada intaan ma dhici jirin cuduraan ma jiri jirin markii ninka horreeyay gadaal la maro ninkii dambe hore asmar ayaa wax walba ay imaadeen anigaan kula hadlaa wajeer wist gadaal inaan u noqon ma raba nin cusub warkayga soo gaabay ninka cusub dadkaas leeyahay ugu horreeya gilic berga mashquulaa jira fursad soo gaabay leeyahay moogi wax badan madaxayda qan xiran wajida odayaasha wax badan afaayeen nin cusub hadaa liin dhiibe hal cilad kale ma qabo hadaa gaaro cusub aad soo gadato oo qurax badan taranturo askeen qoraan waa akhriisay adina wiliga gaaro aswadin oo darawal u dhiibino adiga wada jig sawsiin loo bari بعد suuq soo cilis saala lu weydiina war habal gaariga soo kiishal qurax badan ma aha ma xasaan waa saal hal majib bas asbacin hal majib maawaay ana ku barbartay marka Allah soo ku barbartay shaytan ka baadi yeelo meeyna wasalaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh thank you marka waxaan ii sheegaa waxa ka sii horeey in la yiri maxshmaa kaynaan waa ka qaanay hebelaa u dhiibnay waxaas wax siyaasa ama maxshmaa kaynaan tobanka dugada daba taagan beesha iska dhashaa daba taagan idinka daba taagan waa ku maasantihiin aswahan dhisayna nin kale anagoo dhisayna mana arkin nin kale noo imaadina male haddaan beeshaadnahay asagaan daba taagannahay tulweynaana waxaan u sheegaynaa waxaan kaynaan u dhisayna inay jirin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mimi ni mama Shines wakina mama oye leo niko na furaha sana furaha tele kabisa mimi leo nimefurahi sana kwa kwamba wa area MP Mheshimiwa Adan Kainan amepatia vijana yetu kazi wakina mama wanasema Kainan wakina mama Kainan asanteni sana waxyar oo Soomaaliya ku darsana aniga Shindaysa la yiraahdaa gabdhahayna markay hadlayeen aad aan ugu farxay mama Halima iyo mama Abdiya Mheshimiwa mama yalku waxay sheegteen mama gabdhaha ilmaha shaqaha looga qoro shaqada aad wiilasha jiifyaasha aasiisay inaa gabdho ku daba dartid kuwii soo haray wixii dambe shaqo la siinaayeen gabdhaha lagu daro Mheshimiwa waa ku baryaynaa gabdhaha mama yalka koraha loo soo qaado shaqada maanta tolkayna inta ay ka qabteen daliilkeedu waxay tusaysaa inay bikeebada haddana ku haayeen kan kale ka weyn ay ku siin doonaan gabdhaha marna ma soo been ma siinayna mise ma dhaafayna gacanta kor u qaada Mheshimiwa mama yalku arkaysa tabadaadi sana mama yalku dadaal asante sana thank you very much لكن هل استعمال سياسة كلا يو شيء كلا هني أوغلنا وده بيسي وحندي لاي وده بيسي وحندي لاي the issue of pending bills in the assembly the issue of pending bills وحجرة pending bills أو county أول بحناجة تايلاد أرنتي إيدي وحدنا سو زيارتي أو خصو ترسمي إن محكمة development كده ماله محكمة لقي تاس وحاسمي أنا نقمده شخصي نقطة سياسي نقطة horta codsigeedu waxaa waaye dadkan kulli rewajeer waa dad isla dhasheen xilli abaara lagu jiraa xilligii lacagaha la bixin lahaa hadda la joogaa haddii aad markaan lacagihii loogu talagalay shacibka in la siiyo haddii aad maxkamadda geysid shacibka ayagana wax laga rabo horta qalad waay marka waxaa waaye codsigeedu waxaa waaye dadkii ayaga maxkamadda geeyeen shaksi ahaata siyaasi ahaada
waxaan rabaa in horta miiska la iskugu imaado oo dadkii maaragtaa wixii loo qaban lahay oo wixii la siin lahay laga hor istaagay waxaan umalaynaa isbeddel ayaan samaynay oo kulligaa inaan ka qayb qaadan isbeddelka markaan samaynayni waxay ahayd in dadka nidaamka laga bedelo oo wax loo qabto xilligii dadka wax loo qaban lahay maxkamad ayaa laga bixin lahay taas dadkii reer Wajeer kuma habboona reer Wajeer waxay u baahan yihiin in pending bills wada la bixi in shaqadooda la bixi in maaragtaa dadkii hataa shaqaaleynta la qoray la shaqaaleyn laakiin taas hadda waxay ku socon lahayd ku dhaqaaqi lahayd maxkamad ayaa ka bixi lahayd ka bilow xilligii u horreeyay oo gabanaga la bixi ilaa hadda dhexdooda maxkamad after maxkamad war so our appeal is to the citizens, is to the people of Wajir to understand that issues that are between us can be solved without going to the court. Court should be the last resort. I'm sure most of the issues that were raised in the prayers of those who've gone to court is to ensure that it's personal issues. If you look at them, it's personal issues. It's not an issue that is touching on the people of Wajir. It's not an issue that it's not an issue that makes people of Wajir suffer like this. If it's an issue of personal, it should be resolved at the personal level. We people of Wajir are very close. We are family members. We know each other. Markaan wixii dib oo jira oo maaragta anaga dhexdayna inaan miiska isku imaadno maxkamadda haddii la geeyo dadka reer Wajeerna lacag ma helayin dadkii maxkamadda geeyana lacag lama helayin markaan doodeenna madaxda dhanaan waa inaan dadka wax u qaban haddaynu leenahay inauguration ama coronation of the chiefs bwana DC kama nimemwelezea mimi naitwa James Oshari nimekuja kwa niaba ya Deputy County Commissioner wa Yarmas na hajaweza kukuja, alikuwa na shughuli zingine, akanituma nikuja nimsimamie. Na nilikuja na baraka kutoka kwa County Commissioner Mr. Nalego. Kwa hiyo anajua tuko hapa, anajua tumekuja kutawaza chief hasa chief wa hifadhi. Kwa hiyo tuna baraka ya serikali yote. Kazi ya chief ni mingi na kuwapa mwapatia kuna mzuri awafanyie kazi wao ndio serikali mashinani na wataendelea kuwapatia huduma. Serikali inataka huduma ikuje karibu na watu vile karibu sana. Ndio sababu hii wanaletwa karibu na nyinyi, watakuwa karibu na nyinyi, na najua hakuna chief ama si chief anaweza kuenda kukaa Wajir, atakaa karibu na nyinyi. Kwa hivyo sitaki kusikia ati kuna mtoto ana birth certificate. Kitambulisho tukwambie tukuje tuandikie kitambulisho hapa. Kama mengine mengi tutasema wakati wa mkutano mwingine sababu ya muda. شبكة
muddo dheerna halkay joogteen waxaan idinku salaamayaa magaca ilaahay waxaan kaloo idinku salaamayaa magacii tulaatula waxaan kaloo idinku salaamayaa magacii reer ceeldhaas tan labaad waa ku faraxsana maanta aniga oo odayaashii degmadan amaba qaybta dhan oo kursiga ceeldhaas odageedina ah muddo dheerna taariikh dheerna halka ka haya garanaya xasuus dheerna leh waxaan rabaa inaan mahad weyn inaan iin celiya idinka oo dalkii reer tulaatula ah sida sharafta loo nagu soo dhaweyseen gabdhihii walaalyaalahay dhalinyaradii odayaashii culummadii meel kastoo joogtiin waxaan rabaa inaad salaan kashii laabta ka qoodi asiga qaadiin tan labaad waan ogsoonna wakti kastaba wakti bay leedahay ani magaaladan taariikh dheer baan u hayaa waan xasuusana dad badanna taariikh bay leeyihin guriga ugu horreysa oo iiga soo dhacda waxay ahayd 42 dadka waktigiida ah kuruga goostayna waxaa ahayd 74 waxay ahayd 1997 maantana meesha ay joogto intaasoo kun oo ruuxa maanta daa codayn loo baahda ka codaynaysa waxay ku imaaday nimco xag ilaahay ka imaaday dadaal xaggiin ka imaaday iyo ismaqal dadkii shicibkaa iyo madaxdoodii oo ismaqalsan ay ku imaaday horta waxaan farayaa walaalayaaleeyow dadka marka la barta waxaa la soo dirsa isgabitaan waxaa la soo dirsa kala sheekayn magaaladan meesha ay ka imaadayaan fahansana waan ogsoona maanta dhalinyaro badan oo waqtigeeda dhasheen hadda codeeyeen safar gabatana codeeyeen taariikhda in lii sheego waa gomwi markaan maanta halka ku arka duq maxamed waqtigu sugahay magaaladan waxaa ka soo galay duqcadow biriftu waxaa ka soo galay musee maxamed qaybta kale waxaa ka soo galay duq musee qalalow waxaa kaloo soo galay musee axmed cilmino mareete musee cumar cilmina waxaas nooga imaaday isyeelow waa taariikhda ugu horreysay beesha halka degan oo kansale ugu badnaayaa heleen waan ogsoona aniga waxay ka dhacsan daaqaaranka aan qabana waxaa waaye qof axsaan baa lagu ceeldhaasaan isa wala naani runtiina waxaan ii sheegay meel la joogo tulaatula haddaay jirin ceeldhaas ma jirta ceeldhaas haddaay jirin tulaatula ma jirta waxaan rabaa nin kastaba inuu dadkiisa dhulka ka bixiyo kuwa ka imaadeen magaalada ceeldhaas waxaa la rabaa maskaxdiin inaad isku celiseen haddaay tulaatula jirin ceeldhaas ma jirta haddaay ceeldhaas jirinna tulaatula ma jirta dadkan ilaahay baa wax iskugu daray annakana ilaahay baa qoray idinkaa garateen inaan waktigan aan hoggaanka ii noqonno dadkiina xiriirina inaan noqon inaan dad ku fiicana maaha laakiin waa taariikh nin kastana wuxuu jecel yahay ninka madaxda ah gabadha haddaa la yidhaaha cunugan aabbeeda joogya way farxi soomo kalsooni weyn ay tusi soomo ninka siyaasiga ku jirona waxaas jecel yahay wixiis qabatay waa kan in la qabatay la dhaha horta mid ma jirto qofaana dhahay maanta daan sheekh cabaas aan halka ugu yeeroon dhaha saacadaana sheekh aan noqonin saacadaana oday aan noqonin ma dhici karto waa sheekh waay aniga 24 hours maana siyaasi aan ah maqla 24 hours waxaan amaana siyaasa subaxdii iyo galabtii iyo duhurkii iyo casirkii siyaasaan ku jira meeshiin tagana siyaasaan ka hadlaa wixii suubina hadda waxaan halka maanta aan u imaanay nimcada siyaasadda ay ka mid tahay waxay ka mid tahay doorashadii 2017 cid baan halkan kugu imaaday tii horan waa jirtay waxaan hagaajiyey manifesto dawlad ku dhisan waxaan dhahay soo doorto dalku waa ku maadsiya qayb badan baa isoo dhisay qaybna fikrad kale ay laayeen laakiin tiireed waxay kalsooni dheer ii siisay kuwii waqti cusub ayaan iin codaynin inaan soo celiyo si waqti kale oo socoto ay u codeeyaan amaan u fahma waxay dhinac u mareen tulaatula waa ku faraxsana midnimada aniga waxyaalaha isagala hadasheen waqtigiineed network ma jirin networkaan keeni secondary schoolku qaybaas ay waqtigeeda ma jirin waa ka hagaajini primary schoolkaan hagaajini hadda chiefti aan keeni waxaa waqti kastaba halka liigu qaraaci jiray hadda kama hadlaya maanta waa TB hadda kama hadlaya isniinta waxaa ii imaadaa guddigii dhan waxaan ii sheegay wasiirka u horreey oo tulaatula imaaday inaas tulaatula imaaday doono waqti dhow taariikhda waddankan ay gashaan la rabaa soomo ya
taariikhda waddanka soomo taariikhda waddanka ilaahay duura way geli wasiir dawladda Uhuru Kenyatta u shaqeeya in halkan ku imaada biyaha uu fiiriya uu furo wixii ka dhimanna uu fuliyo insha Allah waa ku tirigelayna waqtiga taas oo siyaasad ma taas marka aadankeena 24 hours meeshii istaga waa siyaasad 24 hours ya taasina talaba wasiirku ay baa doona wasiirku wuxuu u shaqeeyaa madaxweynaha waxa uu soo celiyay idinka iyo aniga soo sidaas ma wasiirku markuu imaado wuxuu qaali afka madaxweynaha aniga idinka ay soo celeyseen waxaan qaali afkiini laakiin xiriir dheer baan leenahay xiriirku maxaa waaye isku baahbaanaanay isku xisbiyaanaanay isku danaanaanay maanta markaan halka joogo madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta uu ka waraayaa inaan halka joogo waxaan idin sheegi maadaama ay siyaasad dhaqan noqoto maadaama ay siyaasad isii aan ku sii ay noqotay waxaan in wada fartiinta aan in wada idinka codsi badan aas bixiseen dadka maanta runtii kelmad nin kastaba kelmad fiican isku hadlay ninkii ku dhahay qaybtoo yaraa tala waxaan rabnaa wixii halkan iileene dhinac nooga imaadaan wala hadalan tala laga qaado qofkaas qof fiican ma laha laan fiican waaye waxaan iin sheegi wixii codsateen waa maqlay dowladda Kenyana waa in la wadaa tulaatulaynay waxaan noqotay rabtaa ceeldaasina waxaan noqotay rabtaa MPgiina aad soo doorateen aad u soo duceyseen odayaasha waddanka lala tashanaa hadda fiiri adiga haddaad wiilka aad way soo shukaansateen ama waa lagu soo dhalay waa lagu soo kori marka lagu soo kori waa qayngaartay waa lagu shukaansateen ama waa shukaansateen ilaahay baa carruur ku wixii iskuulaas geysi midkaas geysi ugu dambeydna inaad meesha dambeys gaaraato maanta soo saas ma baahne maanta tulaatula ninkii soo doorateen nationalka alxamdulillah idinkaa ku mahadle ilaahay baa ku mahadle talada waddanka aan dhinac ka fulilaynaa talada waddanka maxaa waaye mid waxaa jira hadda koor odigoo turkaana annagana sideenu kala ahaayeen odigii mooyayaa turkaana tagay marka odigoo meesha waa yeelahay ninkii saas u wadi af ingiriis dheer asku haday dadka af ingiriis ma fahansan marka odigii begayaas dhahay odigaan heer ejo waxaa waaye adiga wadda baa u turkaana يعني ماشي تكارك ابو وحي لقال لي تكارك انا ماشي انجو وقال وات اباوت علناس وات اباوت تلاتوله هذه دار ومد فينا يقول دد قالك دغن دد بانا وان فان سنه انا هورتون مادام مدبر اللي سو دي حق بدن بالي وله لكن نيجي سياسه غانا waxaad dhashay maalin eedeed hadda maanta dan telefoon ma qaadin galabta markaan noqdo boqol eedeed oo cusub soo kordhis telefoon ma soo qaadi wayse ariga waxaan u dadaalaa waddanka iyo dhulka inay xaqooda shakhsiyan ilaahay baa wax ka qaban kara laakiin waddankii nagala soo doortay inay Kenyaan kale ka daba tagta waa qayb aniga mas'uulkeeda aan qaaday oo u dhaartay wixii tabartayda habeenkii dhaartay inaan ka qabta waa midaas ugu dardaarmiseen shakhsiyan ilaahay baa u bariyay inaan ilaahay wax ka qabto jiilu baa laga hadlay waxaan iin sheegi doorashada biqaabilooda keerta biqaabilooda keerta six somo adi lo arin ciidana si orta dad waa la bati somo dad waa la bati marka runtu muuse waa ciidan waxay waa ilaa istaxitoon yirido cidina biin reecildaas waa ilaa 17 aniga hadda xaasiyalka labadooda hooyadood waxay ka imaadaan ciidan dad badan ma garanayeen habeenkii markii cidul iskugu taga oo tulaatada waxa laga sheegay reer reertay waxa isku soo bixin waa ku jirtaa ay linka soo qafa ka adag soomo anaga guriga markaan tagnay waa nagala digi mid kala wixii codsateen waa faasana waa chiefti yogi waxaan in sheegay walaalayaal kuwa yar ama midka magaaladan meel dheer bay gaari leeyahay haddii buuq yar iyo midka heedan yogana war ruu imaadeen anagana hoosaan u gala marar dawladdiina waa ila wada ninka soo doorateena alxamdulillah hadda waa la dhageysani qaybo badan oo ku tag waxaan tilaabada aan qaadayna qaylaan laga daba keenin waxaan fahansana waxaan rabnaa gabdhaha halka pass certificate inay halka ku helaan kibaanada halka laga jara waqti u dambaysan xataa shaqaalaha dawladda la qoro halka laga qoro stepkii waa socdaa gabdhihiin waa u baahan yihiin waxaan rabnaa steps kan qaadi doon chiefka waa kan anaa 3 toban gaarsiin amali laakiin doorashada inta ay dhamaanin waxaan ku dadaalay way saansana somo ilaa diira ninka hadda chiefta labada chief oo la qoray doorashadii aan ballan galnay igana raali hada magacayaha liidibi waa loo sheegay nin aniga magacayu ka in la bedelo waa diidi maqla si fiican maqla in la bedelo waa diidi aniga oday ah dirac oday muslim ah mas'uulna ah
nin waxaas loo geli inaan farta geliyo oon ka soo celin waa diidna ninka xoogoo tiiraad u dhirfano raalli ahaaw fursad badanaa soo socoto waa lagu siini waa badinaynaa wax dhibba ma jiraan haddaad adi helin ku kaalaa heli tiideed rifkus way ka soo noqon waana badinaynaa wixii hata dowladdeena waa nala wadaa maxaa yeele wiilishu walaasha